بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسigii hore ayaynu kusoo muraajacaynayna kadibna darsigii labaad baynu raacin doonaa ee ahaa kitaabkii axkaamu tajwiid hidaayat lmustafiid fi axkaami atajwiid inagoo tusaalayaasha maanta ku qaadan doona insha allah darsigii hore waxaynu kusoo baranay kam xuruufu alidhaar, xuruufta idhaarku waa imisa, wamaa hiya maxayse kala yihiin, maxay u kala qaybsamaan. waxaynu soo sheegnay jawaab xuruuftiisu sittatun inay lix yihiin. sittatun waa lix, wahiya iyadoo hamzatun waa hamze, iyo walhaau haadii, iyo walcaynu caynkii, iyo walxaau xaadii, iyo walghaynu haynkii, iyo walkhaau khaadii. wajamacaha waxay kusoo ururiyeen bacduhum barhkood, yani bacdu ahlilcilmi fi cilmi qiraa'aat ku takhasusay fii awaa'ili kalimaati, ugu horeynta kelmadahan, nisfi beytin tix gabay ah beydkeed nisfigeed bay kusoo ururiyeen. oo faqaala markaasay dhaheen akhiiga qabo haaka, akhiiga qabo ama akhi walaalkay oo haakayga qabo cilman cilmi, xaazahu koobay, wax kasta koobay oo kitaabka ku baahan tahay qur-aanka, oo hayru khaasirin aanad ku khasaaraynin. waxba ku noqon mayno darsigaas isaga ah, waynu soo sharaxnay. maanta tan qaadanayna waa tan siin. maa amhilatu dalika cala tartiib, maa amhilatu maxay yihiin tusaaluhu daalika arrinka cala tartiibi si isugu xigaan, maxay tahay tusaalayaashu. maa amhilatu maxay tahay tusaaluhu daalika arrinka cala tartiibi adigoo tartiib si isugu xigaan u tartiibinaya. jiim waxaynu ku oranaynaa mithaalu nuuni, nuunkii markuu dhaco cinda alhamzati hamsada u dhaco waxay noqonaysaa man aamana. man aamana, man waa nuuntii, waa kaa nuuntii sukuunta lahayd, hamsiina ka dambeeyna waa kaa ka dambeeya, aamana ugu horeeya. markay dhacdo nuuntu sukuunta le alifka hortiisa ay dhacdo waxay noqonaysaa idhaar bay noqonaysaa. waxaa la dhahayaa man baa la dhahayaa, aamana, man aamana. suurat lbaqara. wa mithaalu tanwiini, tanwiinta tusaalaheeduna waxa weeyaan ayaduna sida tan, waxayna noqonaysaa rasuulun amiin. tanwiintii markay dhacdo hamsada ayaduna dhacdo waxay noqonaysaa rasuulun amiin. waa kaa laamku wuxuu leeyahay tanwiin ama laba gudniin buu leeyahay. aamiinna waxaa jumlada ugu horeysa hamsi, marka ayaduna waxay noqotay waa tusaalihii labaad, hamsihii oo ka daba dhacay tanwiintii oo ay ka daba dhacday hamsi, bimacnaa hamsihii ay ka hor dhacday tanwiin weeyaan. marka rasuulun amiin bay noqonaysaa. wa mithaalu, wahaada kaasi mithaal waa tusaale, ma idaa kaana markay tahay weeyaan xarful idhaari, xarafka la idhaarinaya uu noqdo uu yahay, iyo wanuunu nuuntu ay noqdaan, ama awi tanwiin ama tanwiintu ay galaan, ay kala galaan min kalimatayni laba kelmadood ay kala galaan. kaasi waxa weeyaan wahaada kaasi mithaalu waxa uu tusaale u yahay maa idaa kaana marka uu yahay, maa idaa kaana isku qabo aan kala reebin, maa idaa kaana oo markuu yahay xarful idhaari xarafka la idhaarinaya, iyo wanuunu nuunku, aw amase atanwiinu tanwiintu ay kala galaan min kalimatayni labadii kelmadood ay kala galaan. tusaale ahaan rasuulun waxa weeyaan kelmad, aamiinna waa kelmad, markaa waxay kala galeen laba kelmadood bay kala galeen. markaa tusaalihiisu waa kaas buu yihi. wamithaalu tusaalihiisu, wamithaaluhu tusaalihiisuna waxa weeyaan min kalimatin kelmad keliya markay wada galaanna sidan soo socoto weeyaan. waxay noqonaysaa wayanawna, wayanawna isku kelmad bay galeen.
wayanawna nuunkii waxaa ka hooseeya nuunkii waxaa ka dambeeya hamsi marka waxaa la odhanaya wayanawna way isku taallaa waa la idhaarinaya wayanawna nuunkiina waa kaas isagoo sukuun leh hamsiina isagoo wowga ka yar horeeya waa kaas wayanawna waa kelmad keliya ومثال نون نونت markay dhacdo cinda alhaa'i haaday dhacdana waxay noqonaysaa in huwa bay noqonaysaayo in huwa waa kaa la odhan maayo in markii waa lagu boodaya waxa la leeyahay in huwa waa la idhaarinayaa watanwiinu tanwiintii oo ay ka daba dhacday haadin ay ka dambaysaana waxa weeyaan tanwiintiina waa naga tusaaleyn doonaa watanwiinu tanwiintu waxay noqonaysaa cindaha agteedana jurufinhaar bay noqonaysaa jurufinhaar ama godniinka tanwiintu ha noqoto laba godniin ama laba kordhig ama laba hoos dhig waa tanwiin baa la isku yidhahda waa isku mid haarun bay noqonaysaa waa isku mid jurufinhaar وهذا كاسي في كلمتين ومركي لبا كلمات كوكلا جيران جروفنا وكلمة هارنا وجملة وهذا كاسي في كلمتين ومركي لبا كلمات كوكلا جيران ومثاله تساليسو في كلمة واحدة كلمة كلمة مركي كوكلا وحنا قنسا ينهون بين قنسا ومثال النون نون تمرك ومثال نون كتساليه سوء nuunka tusaalihiisu cinda alcayni caynka markay dhacdana waxay noqonaysaa min cilmin imika hadda waxaan arkaynaa miimkii sukuunta lahaa oo caynkii ka horeeya marka waxay noqonaysaa waa idhaar waayo xarafkan caynka ayaa ah xuruuftii idhaarka u noqonaya cilman xaazahu ateen kusoo maranay watanwiinu tanwiintiina waxay noqonaysaa cindaha markay ka daba dhacdo caynka ka daba dhacdo tanwiintu markay ka hor dhacdo caynkana waxay noqonaysaa samiicun caliim wahaada kaasi fii kalimatayni waa markay laba kelmadood ku kala jiraan haddaba mithaalu fii kalimatin kelmad keliya markay ku jiraan waxay noqonaysaa yanciqu bay noqonaysaa insha allah marka waynu ku joojinaynaa maanta halkaas baynu ku joojinaynaa biidnillahi tacaala hadduu ilaahay ka dhigo labada tusaalayaasha kalena darsiga dambe aynu raacin doonaa hadduu ilaahay ka dhigo